بسم الله الرحمن الرحيم runtii waxaa sharaf iyo runtii wanaag ii ah maanta inaan imaado Jubbaland magaalada Kismaayo aan kula kulmo xildhibaan dowlad goboleedkan ee hadda diyaar ku ah inay gutaan howshooda xildhibaannimo ee golaha shacabka iyo baarlamaanka Soomaaliyeed halkan kula kulmay musharax ahaan waxaan u sheegay barnaamijkayga ku aadan musharaxnimada iyo afartan soo socota sidii dalkan runtii lagu wada lahaa loo soo rogi lahaa xasilooni siyaasadeed sidii dalka kan looga saari lahaa isqa qabsi dambeeto iyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare isaysa sidii ummadda Soomaaliyeed isugu hayn lahaa dib u heshiisiin sax looga yeeli lahaa sidii amni loo dhisi lahaa sidii nidaamka federaalka aan haysano looga dhigi lahaa nidaam u shaqeeya dalka iyo dadka waxyaabahaas oo dhan isku soo qaadnay sidii dhaqaalaha iyadana loo abuuri lahaa dhaqaale dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalkooda uga dhex arkaan dalkooda marka runtii waxaan u sheegay inaan u taaganahay kursiga madaxweynenimo in muhiim ay tahay hoggaanka u sareeya ee dalka in dib loo fiiriyo oo wax laga bedelo sida uu hadda u shaqeeyo runtiina dalka kan uu isbedel madaxweynenimo u baahan yahay sababtan ay tahay in isqa qabsi badan uu dalkan keenay dib u dhac runtii aad u fara badan loo baahan yahay maanta qof garan kara ra'iisul wasaare yacni spaceka iyo fursadda u baahan yahay inuu ku shaqeeysiin kara madaxweyne ahaanna hoggaan iyo aragti dalka ku hoggaamin kara xukuumaddana xukuumadda u deyn kara marka waxay la tahay inay muhiim noqonayso runtii aasaas tahay in khilaafaadkii soo jiray afartii sano ee aan soo dhaafnay iyo ka horba dalka kan laga ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed boog ayaa ku wada taalla la ilaaliyo lasku hayo sidii dalka kan isugu hayn lahaa wixii dhacay lasaga garaabi lahaa dib loogu heshin lahaa waxaasoo dhan aasaas waxay yihiin inaan amni dhisano inaan dhaqaale dhisano in dalka kan aan runtii ka soo saarno dalalka caalamka la tilmaamo ee runtii dhaqaale ahaan iyo amni ahaan dadku ay maal gashtaan marka waxaan maanta xildhibaanada u soo jeediyey qorshaha isla tahay inaan dalkaas ku hoggaamin karno